بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المقعيقة وعبد الرزاق شريف عبد الله ورديرة وحكاسو برتي جامعة الإسلامية في المدينة المنورة، جامعة سعودية، جامعات كميدة مقعدة جامعة إسلامية في المدينة المنورة وكتها المقالة المدينة. جامعة waxaan tagay 2012 waxaan ka bilaabay kulliyad shariica 2015 ayaan dhameeyay oo kulliyad shariica aan dhameeyay kadib waxaan qaatay diblom oo tarbawi ah waxaan u sii gudbay kulliyatu dacwa oo aan ka qaatay ماجستير إدارة تربوية. الحمد لله تاسان ماجستير عن كسو ديالي وحين أي صار دماتي لوضع كون كوي لواتنكي دمات كيسا معلومات يعني وصاب سندان ماشي أنا قدبو جامعة حالة دي معلومات دي جامعة طبعا magaceeda saa idiin sheegay jaamacada islaamiya fi lmadiina munawara allaha waxayna ka tirsan tahay jaamacadaha sacuudiga ugu waaweyn. yani ugu waaweyn markaan leeyahay ma aha lama jeedo dhismaha iyo yani qaabkeedii ma aha, jaamacadaha ugu ardayda badan oo xoogaa ugu nashaadka fiican ugu tayada fiican ayay ku jirtaa jaamacada islaamiya. jaamacadaas waxaa la aasaasay 1381 hijriyada ayaa la aasaasay. waxaan lagu aasaasay kulliyad shariica kulliyad ay dhahaan, kadib kulliyad kale ayaa samaysmay marba marka sii dambeysay xoogaa way sii ballaarinaysay ilaa markii dambe ay ku soo biiraan kulliyad cilmi ama maadi ah. jaamacadu jaamacad العالم ayaa loo yaqaanaa magaceedii kale waxaan loogu bixiyay waxaa u badan jaamacada ajaanibta ayaa ku badan. yani haddii cibaarada aan saxo waxaa ku badan dadkan wadanka u dhalan ayaa ku badan, 85% ayay ka yihiin, 15% dadka sacuudiyaanka oo meesha u dhashay ayaa dhigtaa. nidaamkeedana saas ah loogu talagalay markii la aasaasayba in jaamacadaas ay ka faa'iideystaan dadka caalam islaami ku nool oo jinsiyad walba leh, afrikaan ah, asian ah, yurubiyan ah, australian ah, nooc walba inay ka faa'iideystaan. ficlan wayna joogaan 100 yani jinsiyadood oo baasboor wata ayaad ka helaysaa maa min dowla oo adduunka ka jirto ilaa waxaad ka helaysaa arday ayaa ka joogo. marka jaamacadda markii la fiiriyo mamlakada gudaheedii waataan hore u sheegay jaamacadaha ugu fiican ay ku jirtaa. markii calaa mustawa caalamna waa saas jaamacadda yani dadkeedii xoogaa ugu saameynta badan ayay ku jirtaa. guud ahaan jaamacadda yani ardayda dhigata saan idiin sheegay ama hore u sheegayba waxay u badan yihiin dad ajaanib ah, 85% waa ajaanib, inta soo hartayna waa dadka wadanka u dhashay waay. fursadaheedii ama kulliyaadkeedii kulliyaadkeedii oo jaamacadda ilaa haddeer waxay ka kooban tahay 8 kulliyadood, 5 kulliyadood oo culuum shariica ama daraasaad islaamiya ah ay ka mid yihiin kulliyad shariica wa daraasaad islaamiya, kulliyad alxadiid, kulliyad alqur'aan, kulliyad الدعوة, kulliyad اللغة العربية. waxaa kaloo mar dhow lagu ziyaadiyey oo kulliyad 3 kulliyad alhandasa oo engineering ah iyo kulliyadda alculuum ay dhahaan ay hadda lagu soo ziyaadiyey iyo xaasuub oo computer science ay u yaqaaniin. 3daas kulliyadood oo cilmiya ayaa hadda lagu soo ziyaadiyey. ardayga markuu waddanka yimaado wuxuu sameynayaa markii la soo aqbalo uu soo xariisto waddanka u yimaado kulliyadkaas uu kala dooranaa. kulliyad walibana waxay leedahay
nidaam gooni ayay leedahay. tusaale haddaan kuu soo qaato kuliyat alqur'aan alkariim ardayga galaayo waxaa shardi u ah inuu qur-aanka xifdisan yahay oo bimacna alkelima ah, yacni xifdin oo dhammaystiran, shaki aan ku jirin oo ii sheeg wax kale aan ku jirin, taasaa shardi u ah. kuliyaadka kale ardayga markuu galaayo waxaa laga rabaa u shardi ah inuu fahmi karo luqada carabiga uuna ku hadli karo, ilana meesha waa waddan carbeed, macallimiin carab wax kuu dhigaysa, marka ardaygaas markii wax loo sharxaayo inuu fahmi karo ayaa laga rabaa, shardi u ah. qofkaan carabiga garanayn muxuu sameynayaa? qofkaan carabiga garanayn waxaa laga rabaa, ama jaamacaddu markii muqaabalada ay la sameynayso ayagaa waxay u taxdiidinayaan hadduu geli karo luqadiisay fiirinayaan, hadduu geli karo kuliyadda iyo hadduusan geli karin. haddii carabigiisa uu fiican yahay wixii loo sheego uu fahmaayo yuusanba ku hadline, laakiin wax allaale wixii loo sheego uu fahmaayo waxay geenayaan kuliyadda. hadduusan fahmayn oo carabi waxba uusan ka garanayn waxaa jira macad oo luqa alcarabiya ligayr naatiqiin oo dadkaan luqada carabiga garanayn loogu talagalay 2 sano oo meesha kusoo qaadana, carabigii oo si fiican usoo barana, waddankii oo la qabsana, jaamacaddii oo la qabsana, kadib kuliyaddu soo guuraa. waxaa kaloo jirta marka jaamacadda ardayga kuliyadda markuu dhameeyo macadka uu ka soo baxo, haddii macadka uu galo ama kuliyadda uu ka soo baxo wuxuu usii gudbaa kan macad ka soo baxayn kuliyaddu imaana. kan kuliyadda dhammaystana fursad waxaa jirta oo ardayda jaamacadda ay u siisay inay daraasadooda sii dhammaystirtaan, oo ay ka mid tahay maajisteerkii, masterkii, doctooradii oo PhD-ga ah. waxaa hortoodii ku dadban keliya imtixaankaas inay galaan oo ay ku guuleystaan, kadibna waa la qaadanaa haddaysan yani aysan jirin zaxma. waxaan ka wadaa matalan kuliyaddan ardayga waa kuliyad shariicu fa matalan ka baxay, maajisteeru rabaa kuliyad shariica inuu galo, gaar ahaan fiqi usuul inuu galo rabaa, ama fiqi inuu galo rabaa, ama usuul inuu galo rabaa. haddii adoo Soomaali ah oo baasboorkaaga Soomaali uu yahay 4 qof hal meel haddaad isla wada qadimtaan oo isla ablaad gareysaan waxaa laga yaabaa in meeshaas xoogaa fursadda ciriiri ay noqoto, hal qof keliya u baahan yihiin, waddan walba hal qof inay ka qaataan, 2 qof ay ka qaataan, marka xoogaa in tasaaxum uu ka dhaco ardayda qaarkii laga tago way dhacdaa, laakiin fursaddu way jirtaayo imtixaan keliya ayaa kaa xiga. heerarka masterka way fara badan yihiin, kuliyaadka ilaa 8 aan dhahnay, masterka inuu ka badan yahay macquula. matalan kuliyad shariica keligeed waxaa hoos imaanaya iqtisaad islaami, fiqigi, usuul fiqi, waa kulli waa ay sheegeen yani takhasus gooniya waay. al-anzima wal-qadaa oo ayadana takhasus gooniya, anzimadana waa gooni, qadaahna waa gooni. kuliyad shariica waa intaas. kuliyad dacwa oo kale oo kuliyad ugu ballaaran waxaa hoos imaanaya tarbiyadii, إعداد تربوي، إدارة تربوية، توجيه والإرشاد، إعلامكي، waxaa imaanaa hoos imaanaya cilmi nafsigii. waa un ayagana takhasusad gooniya arday markuu kuliyadda dhammaysto oo fursad u helayo inuu galo magisterku ka dhammaystirto. waxaa dhacda marar qaarkii arday kuliyad shariica ka soo baxay soo u geli karaa kuliyaadkan kale oo ah tarbiyada oo kale soo u geli karaa ama aqsaamtan tarbiyada. aniga oo kale kuliyad shariica dhammaystay, baashkeygii masterkeygina waa إدارة تربوية. واللبا تخصص حوغا يرو كلا فوق. marka waxaan sameeynay jaamacadana ugu tala gashay ardaygii kuliyad kala ka soo baxay raba inuu tarbiyada galo hal san iyo bar oo dibloma wuxuu qaadanaa إعداد تربوي leeyahay. qofkii ka ku guuleysta oo darajo fiican ka keena wuxuu u gudbi karaa magisterka tarbiyada. fursadood way taalaa way banaan tahay. marka xilliyada jaamacadda la xariisto waa goormee jaamacadda xilliyada la xariisto waagii hore way iska furnaan jirtay, xilli walba la xariisan jiray, laakiin muddooyinkan dambe oo sanadadan dambe oo 2 sano ama 3 sano ugu dambeysay waqti gooni ay furaan. waa xilliga markii isku jaamacadaha la furo kadib bil 2 sano dugsiyeed markuu bilowdo xilliyadaas ay furaan. inta uu furan yahay waa 2 bilood 3 bilood kadib, natiijadan dhowr bilood kadib ay soo iclaaminayaan qaabka loo upload gareeyo ama qaabka loo taqdiimiyo. qaabka
dadka way ku kala gedisan teknolojiyada sida loo isticmaalo dadka ma wada yaqaaniin kulligood laakiin haddii mar aa heshid ciwaanka pageka jaamacadda haddaad heshid oo qof secondary dhamaysta waxna akhrin kara waxna qori kara dabcan qofka jaamacadda taqdiiminaya qof secondary soo dhamaysta waa macad sharci ka soo baxay way sahlan tahay inuu galo uu xareysto wixii uu fahmi waayo wuxuu ugu noqon karaa ardayda dhigata jaamacadda arday soo dhamaysataa jirto uu weydiin karaa ama dad khayr Allah siiyo oo ka shaqeynaya sida hadda pagekan oo hoyga fursadaha oo kala yani qaabkaasi dadka uga kaalmeenayo u fududeynayo inay xareystaan ama dad kale u sharxayo ayaa jira iyo page kale oo saas oo kala marka meelahaasna waad ka faa'iideysan kartaa bas waxaa muhiim ah inaad heshid pageka jaamacadda oo fursadaasi ay ka jirto Sacuudigana say u badan tahay jaamacadeedu waa bilaash yani fursadeedii way iska furan tahay fursadaha Sacuudiga ka jira jaamacad waliba yani waxay ka qaadataa number muayana oo arday ajaanib ah annagana Soomaali haddaan nahay ajaanibtaasaan ku dhex jirnaa oo banaanka ka imaanayso marka fursadahaasi jaamacad waliba oo Sacuudiga ku taalo inaad yani aad fiiriso ilgooni u yeelatid waa muhiim qaabka loo xareynayo waxaan ahnay waxa sameynaysa shuruudihii laga rabay oo ardayga laga rabay ayuu la imaanaa shuruudaha waxa kamid arday dugsi waa inuu dhameystaa koow dadiis waa inaysan ka badan 25 aysan ka yaraan 18 labadaas waa asaasi waxaa kaloo soo weheliya arday aad u dhibta baasaboorka waxaan gacanta ku heen baasaboor maxaa uu sameynaa uu ku leeyahay baasaboorkana meesha ugu horeyso albaabka ugu horeeyo ka gelisid waa sababtoo ardaygan wadanku yahay wuxuu yahay meesha lagu gaanayo meeshaas shahaadada dugsiga sare iyo warqadda caafimaadka iyo warqadda dhalashada iyo laba taskiyo taskiyadana waa haddii af Soomaaliya aan ku sheego ama dii kale aan isku dayo taskiyada waa qofkan wuxuu yahay oo shakhsiyadiisa wuxuu yahay qof يعني كشيكينها فمثلا أما كورمايو باكجراوندكيس أم ريفرنس ميدان أساسين ده عن فيلا سومالي يعني شخصيا وحوية هاي حالة ديسة ماشي وحبريسي سومرتي قفني كان تسكينا أيوه أخلاقيا دينيا خلقيا تعليم أهان كلي تسكينا لو حب على جربا إنه كقاعدة شخصي ومعروفة وودن كلاجي قانو ودعوة كل حجرة أما مؤسسة ama hay'ad oo wadan ka shaqeynaysa ama wadankoodii wadanka Sacuudi ka shaqeynaysa ama wadamo kale oo macruuf la yaqaan hadii loo noqon karo ninkaas ma taqaanin backgroundkiisa ka sheekeynay oo la waxba shuruudaha qofka haduu dhameystirto iyo wixii seminaara uu galay yani kullama ay badan yihiin dokumentiga uu badan yahay kullama aad ka fursad badan tahay yani ardayga way marka dokumentiga sal ugu badiyaa ardayda waxaan kula dardaarmaa oo dugsiga sare dhameynaysa ama dhigaanaysaba oo hamigoodii ah inay si dhameystirtaan waxbarashada dibadda ay ku dhigtaan inay ku dadaalaan seminaarada jaamacadaha ay bixinayaan ama iskuulaadka ay bixinayaan meel laga bixinayo in dokumentiyadaas ay ku dadaalaan oo shahaadooyinkaas ay aruursadaan wax badan ay u taraysaa ardayga oo jaamacadda dhiganayo ama jaamacadaha Sacuudiga miisooyinka ay kaga gedisan yihiin meelaha kale waxaa kamid ah ardaygu wuxuu helayaa meel uu jiifto oo khaas ah oo bilaash ah sariir yani qol sariir ay ku jirto armaajada ay ku jirto miis ay taalo oo joodarigiisa iyo wixii diyaari mukeefkiisa uu ku jiro marka intaas laga tago jaamacaddu waa bilaash waxaa kaloo fursad ay dawladda Sacuudiga khayr Allah u siisay ardayda arday walba wuxuu leeyahay 840 riyaal ninka jaamacada islaamiga dhiganayo jaamacadaha kale qofkii dhiganayo waa xuduud waxay u dhowdahay 800 200 xoogaa jajab oo dollar 200 xoogaa jajab dollara adoo lagu siinayo waxbarashada bilaash ay ku tahay intaas waxaad ku tadbiirinaysaa cunadaadii iyo internetkaagii iyo kutubtaadii ama buugaagtaadii iyo labiskaagii shoppingkaagii intaas waa marka arday waxaa loogu talagalay inuu kaga faa'iideysto lacagtaasi iyo waxbarashadaasi hadduu isku helo inuu si fiican u dadaalo waxaa kale u dheeriya ardaygii imtiyaaska keena oo mumtaaz keena 90 kor ka mara wuxuu leeyahay sanad kasta 1 riyaal uu leeyahay waxaa kaloo jirta ardayga meesha dhiganaya sanad kasta waxaa la siiyaa 850 riyaal
oo 200 xoogaa jajaba oo loogu talagalay bedel kutub ay dhahaan ardayga inuu kutub iyo muqarraadkiisa uu ku gato loogu talagalay marka fursadahaas banaanka yaalo oo annagana banaanka aan ka joogno waxaa la rabaa ardayda inay xoogaa u dhug yeeshaan oo ay ka faa'iideystaan qofka ilaahay u calfo oo nasiibkiisa ay ku jirto inuu meesha tago ka faa'iideysto inuu ka faa'iideysto laakiin asbaabtu waa inaan la imaataa asbaabtu waxaa ka mid ah in shuruudaha soo buuxisid aad applied garaysid haddaadan garanayn meelaha laga helaayo sida beejkan oo kale inaad saas uga faa'iideysatid waxaa kaloo fursad aad u helaysaa waxbarashadaadii baaj markaad dhamaysid inaad maaster ama doctora ama PhD masterka inaad dhamaystiratid waa fursad way kugu bannaan tahay soomaalida jaamacadana waa uun rag dumar ma kuma jirto ardayda meesha wax soo applied garaynayso waa uun rag laakiin jaamacadu way jiraan oo dumar u khaasa sida jaamacadda Amiir Nuura oo kale dumar gooni waaye jaamacado kale waxaa jiro oo dumar ay qaataan sida jaamacad Malik Sacuud oo kale oo Riyaad ku taal dhowr jaamacado Riyaad ku taal waxaa jiro dumar iyo rag bay qaataan ragana gooni u degan yihiin dumarkana gooni u degan yihiin waxaa kaloo kana jaamacad Tayba laakiin nisbada jaamaca islaamiya marka laga reebo jaamacadaha kale nisbada ardayda ay qaataan boqolkiiba waa 15 jaamaca islaamiya boqolkiiba waa 85 waa farqigaas u dhaxeeya ardayda waxyaabaha dhibaatooyinka ay ka haysato jaamacadda ama markay arday dugsi dhamaysan waxa ugu daran oo ay ka sheeganayaan sida loo xareynayo shuruudaha waa inta meeshan ku sheegnay oo ah ardayga waa inuu dugsi soo dhameystaa ama macad sharci uu soo dhameysto markuu soo dhameysto kadib shahaadadiisa uu soo qaato baasaboorkiisa uu soo qaato warqad caafimaad uu ku soo darsado dhalasho uu ku soo darsado Allahu musta'aan taskiya uu ku soo darsado laba xabo taskiya iyo shahaadooyin kale oo seminaara uu asaga uu heli karo oo markaas uu galay hadduu san jirin hore wax uu galay haddii fursada banaanka yaalo jaamacadaha ama iskuulaadka ay bixinayaan macaahida waa inuu ka faa'iideystaa intaas markuu isku darsado oo hal malaf uu ku shubto flaashkiisa uu ku qaato jaamacad allaala jaamacadii furan oo meelaha lagu sheego baraha bulshada ama dadka aad ka maqashid oo Sacuudiga waad ku xareysan kartaa haddaadan garanayna dadkii yaqaanaad ula tagaysaa ayaga ku fududeynaya laakiin albaabku waa inaad ka raacdaa mar walba taas muhiim ah jaamacadeenan oo jaamac islaamiya ardayda dhigata markii yani Soomaalida yani ardayda guud ahaan waa tiro number aad u fara badan waay ilaa taqriiban waxa lagu qiyaasaa 20,000 oo arday inay dhigato Soomaalidu waxay ka yihiin sida dawladaha kale ay ka yihiin oo kale ka yihiin inta deer dhigata xaaliyan waa 136 arday dhigata oo isugu jirto arday macadka dhigata arday kulliyada dhigata arday dhigata masterka dhigata arday dhigata PhD hadeer diyaarinaysa arday PhD ga ugu yar masterka ku xigo baajka ugu badan ardayda jaamacadda markii la furay ilaa hadeer yani ka qalin jibisay ama dhiganaysay tiraan waxay gaarayaan 500 iyo xogaa ay gaarayaan dadka ugu caansan oo jaamacadaas ka baxay oo jaamacadaas yaa ka soo baxay dad isweydiinaysid oo isleedahay waxaa ka mid ah culimada haddaan kuu soo tirinaa jaamaca islaamiya magaceeda saad uga jeedid marka horena saa idiin sheegay jaamacadda waxaa lagu bilaabay kulliyad shariica oo culum shariicada lagu baranayo oo in muddo taas kaliya shaqeynaysay kadib kulliyadka kale qur'aan iyo xadiis iyo luqada carabiga iyo dacwo kadib ay gadaal looga ziyaadiyay intaas shantaas ayadoo aad kadib waxaa lagu daray 3 kulliyadood kale marka jaamacadda dadka ugu badan oo dadka ugu caansan oo hadeer la garanayo macruufka ah ka qalin jibiyadaan qaar kamid ah ku tiriyo waxa kamid ah Sheekh Umar Faaruq Sheekh Umal Sheekh Shibli Sheekh Al-Wajiz Allahu musta'aan iyo mashaayikh kale oo hadeer joogta magaalada Dr. Harun oo ah jaamacadda ummadda ka ah sheeg عميد كلية الدراسات الإسلامية iyo دكتور حسن معن داود oo ah asagana jooga daar xadiis oo muqdisho banaankeedii ku taala iyo culimo fara badan oo aan la soo koobi karno meeshan hadeer aan ku soo koobi karin ayaa ka baxday macruufka ah magaalada wadanka gudihiisa oo la yaqaano aan shak ku jirin marka
يعني جامعة هذا سلاذة هي كبحي ومعروفة ضد كاسها كميدا وضد وضن كدولتنا حلالك هاي علماء هانا دي لدهنا ضد يعني نوع عسايا جوجا مركا إن شاء الله بإذن الله الكريم النوح الرجال جامعة مركا قفكي يعني الربا إنه قيبت الشريعة هذا القلب وحن كل دردارنا يا كل طلينا يا مركو هو رئيسه والدين تنو برتربه إنه كبير معاهد شرعية أما مساجد وكفايديستو وحلقاتك علماء وحكبرته أسقوا حقا خلفية له وفقه وحكي قانو نحودي وحكي قانو أصولك وحكا قرانا عقيدة وحكا قرانا ماشي إنه تكدبنا وأحبر سيدي سير ما يسرته ونن كصوبح إن شاء الله بالله الكريم هدو إلهي وفضيه وكصوبح يعني كسو فايديستي ومدن هدو فايدين تون بالله الكريم إن شاء الله